Soomaaligu wuxuu ahaa naflaamada ugu sandeen sadada tafaraaruqiyo intaan soo cufin safiyo cudud u lahaa cadaawo kaga sasaan. bismillahi rahmaani rahiim. marka hore ilaahay baa mahad iska leh inoo suurta geliyay inaan halkan soo yeemano maanta inagoo nabad qabna una dhameysano umuuraheena. marka xiga waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee igu xidhan aniga ka nimcaan ahaan meel kasta ay joogaan wanaag ma rajeenayaa. marka xiga fariinteedana waxay ku aadan tahay dhammaan bulshada reer Minnesota, Nirada, Minneapolis, sidoo kale St. Cloud, Register, Wilmer. dabcan waxaanu qorsheynay barnaamij aan ugu magac darnay maalinta dhaqanka Soomaaliyeed oo dhici doona June 18. barnaamijkaasi waxa idin soo qaban qaabisay Hiddasoor, dabcan hay'adda Hiddasoor oo anigu aan ka ahay hogaamiye. waxaa sidoo kale nagala qayb qaadan doona dhammaan fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku sugan Minnesota, sidoo kale ganacsato dad caan oo la yaqaan oo kale. marka waxaan rajeynayaa inuu insha Allah barnaamijkaasi fiican uga qabsan doono waqtiga inoo samaado. waxaan ugu talagalnay bulshada Soomaaliyeed oo maalinta dhaqanka Soomaaliyeed waxa ka soo qayb gali doona dhalinyaro badan oo dabcan dhaqanka ciyaarta. marka soo dhawaada. halkan waxa igula sugan abwaaniin, fanaaniin iyo shacaba kulli xaq dheeraad naga heli doontaan. aad iyo aad baan islaamaya oo Health Performance Center oo ku taala 3500 Plymouth Boulevard, Plymouth, Minnesota. waxaan ku qaban doonaa maalinta dhaqanka Soomaaliyeed ama Somali Cultural Festival oo runtii aan ugu talagalnay inaan ku soo bandhigno runtii dhaqankeena, hidaheena, runtii guryahan ku noolaa jirnay, cuntadeennii, dhammaan waxyaabaha annaga aan rabno maaragtay in lagu garto inaan kusoo bandhigno. waxaa kaloo jirta runtii inay kasoo qayb galayaan dhammaan dadka neighborska ama dadka nagu degan halkan, hadday noqon lahayd cadaan ama hadday noqon lahayd madow ama hadday noqon lahayd runtii dhammaan Soomaalidana way ka heli doontaa. waxaa jooga dhammaan dadkii sugayahanadii dhammaan waa joogaan maalintaas. waxaa kaloo jooga oo imaanaya officialskii magaalada, waxaa imaanaya dad badan oo ka tirsan yihiin hataa fanaaniinteena Soomaaliyeed. waxaa imaan doona dhalinyaro youth oo ciyaaraha soo bandhigi doona oo cusub oo runtii ay soo saartay Hiddasoor oo runtii ugu talagalnay inay soo bandhigaan ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka dhammaan qaybaha Soomaaliyeed, hidihii dhaqanka meel kasto. insha Allah waxaan rajeynayaa dhammaan Soomaalida June 18 waa 5 waa galabtii 5 ilaa 9 galabnimo. waxaan rajeynayaa insha Allah inaad halkan ku kulmi doono maalintaas. waxaana noqon doontaa maalin fiican. waa baar ka weyn runtii sida u jeedaan muuqaalka aad arkaysaan waa ilaa 8,000 oo qofood ay qaadaa. marka insha Allah maalintaas inoo balan ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم Soomaali weyn waa anigoo ah Hodan Shabiin. waxaan rabaa inaan idin la socodsiiyo June 18 waxaanu qabnaa maalintii dhaqanka Soomaaliyeed Hiddasoor. waxaan naloo qaban doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo dhaantadii, waxaan naga maqnayn cayaarihii, waxaan naga maqnayn cuntadii, waxaan naga maqnayn reer Sabarban waa shidanahay. marka nagala soo qayb gala. Hiddasoor ayaa dhammaan ummadda ku nool Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka Minneapolis iyo agagaarkeedana waaxigeeda 18 bisha 6 waxaan halkan ku leenahay barnaamijkaas oo loogu magac daray waxa soo qaban qaabisay barnaamijka Hiddasoor. waxaa ka soo qayb gali doonta dhammaan fanaaniinta magaalada joogta iyo kuwa asxaabteena kale oo nimcaan ay ka mid yihiin ee Ohio. maalintaas waxay iman doona haddii dam kale ka dhigo dhammaan ehelka, asxaabta, dhalinyarada. waxaana la yiraahdaa barnaamijka dhaqanka Soomaaliyeed. waxaanu ku qaban doonaa meesha tan aad arkaysaan ee aad iyo aad ka quruxda badan. marka waxaan ogeysiinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ku nool Minnesota State inay maalintaas ka soo qayb galaan. فليتفضل ayaan leenahay. thank you so much. aad iyo aad